السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا وناكسن دعوة ديال كسر بعض ور واحد دلك يديجان كان نجسو جارة وسيتو سه أوجد هاتان حليدا نوكر ألفا تي في وحنا أرابة إذا لسه عسيا أنا جو محمد شافع عنكو وقالني 4 تعرضنا يكون بيجان تحي سيدي طبانكا بيشا لوليو لبدا كون سيدي طبانكا قضب بدا وركيناكم الله دونتان أيه وحكمدا xildhibaanada aqalka baarlamaanka umatashiis maamulka wajeer oo dalajo gaarsiisay ganacsada qudaarta deegaanada ismaamulka wajeer oo ka socda xoolaha laga talaalaya cudurka xuumada ee loo yaqaan Rift Valley Fever iyadoo macallimiin la'aan ay ka jirto guud ahaan ismaamulka wajeer ayaa waxa iminka soo badanaysa ardayda ku biiraysa macaajida lagu barto macallinimada waxa la soo gabagabeeyay tartanka u socday iskuulada sare countiga wajeer قلب وناكسن xildhibaanada aqalka baarlamaanka umatashiis maamulka wajeer Fatuma Geedi ka Bombay ayaa waxay maanta gaarsiisay hooyooyinka ganacsada qudaarta dalaje oo u talagashay inay iskaga reebaan qoraxda sidoo kale xildhibaanadan ayaa wada dadaalo ay sare u qaadayso dadka saboolka ee ku dhaqan ismaamulkan wajeer marwa Fatuma ayaa waxay socdaal ku soo martay suuqyada kala Soomjinga qorraxi dhiigle iyo waliba suuqa steeka girfto iyadoo gudoonsisay dalaajyo si ay ganacsada qudaarta uga harsadaan qoraxda waxayna shacabka kula hadashay suuqyada ay socdaalka ku soo martay marwa Fatuma ayaa waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay u fulin lahayd ballanqaadyada ay shacabka u sameysay xilligii ololaha doorashada tan iyo intii loo dhaariyay xilkan ayaa waxa magaalada wajeer laga dareemayaa dhaqaaqa horumarneed ee ka fulinaysa guud ahaan ismaamulka wajeer لكن حتى ما دام قرحنا يكون شيء أيجنا عرونا هايستان عرنا يكجلس عانو يكون حاسنا عليه بل سيا ضلت وحرسنا قرح deegaanada hoostaga ismaamulka wajeer ayaa waxa ka socda talaalka xoolaha laga talaalayo cudurka xuumada ee loo yaqaan Rift Valley Fever sida warbixintan ugu eegay wariyaheena Cabdiraxmaan Geele Haajir Cabdiraxmaan Mucaawiye daaweyntan xoolaha ee laga daaweynayo cudurka Soomaalidu u taqaano Sandhiga ee Rift Valley Fever-ga ayaa waxa uu ka socdaa qaybo kamid ah degmo baarlamaaneedka ismaamulka Wajeer magaciidu waxa la yiraahdaa Yuusuf Cabdigeedi wasiirka livestock xalaanada xoolaha iyo agriculture beeralayda waanahay maanta waxaan joognaa waxaan subinahaynaa talaalka cudurka la dhahay Rift Valley Fever teamkan aad arkaysiin qariib 10 bari ay ku jiraan gobolkan constituency Wajeer East marka saad ogtiin cudurka Rift Valley Fever waxa iska dilaacay aldaas khaas ahaan meesha tuulada leeyahay Basir marka waxaan doonaynaa cudurka soo faafin meelaha kale ama tuuliyalka kale aan cudurka lagu arkin in xoolaha laga talaalo cudurka asaga ah iyadoo macallimiin la'aan ay ka jirto guud ahaan ismaamulka wajeer ayaa waxa iminka soo badanaysa ardayda ku biiraysa macaajida lagu barto macallinimada warkaasi oo faahfaahsan waxa inoo soo diyaariyay wariyaheena Xasan Ciyaar Jecel kuliyada waxbarashada macallinimo ee Wajir Teachers Training College waxa maanta wax ka bartaan boqolaal dhalinyaro ah oo Soomaali ah kuwa oo sanadaha soo socdo buuxin karo gaabiska xagga barayaasha oo in muddo ahba ay la dhuutinaysay tacliinta gobolkani waqooyi bari Kenya manhajka waxa uu maanta dacsaan la yahay dhaqaale yari horseedi karto in ay curiyaansanto howlaha tacliinta hadii uu heli waayo deeq bixiyayaal garab istaagaan boqolaalka dhalinyarta waxbarashadooda kuwa oo aakhirka khibradooda waxbarasho ku kabi doonaan jiilka dambe ee u soo kacayo ismaamulkani Wajeer sanadihii la soo dhaafay waxa magaalada Wajeer ay la kulantay gaabis xagga macallimiinta kadib markii weeraro joogto ah dagaalayaanada al-shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ay ku bartilmaameysteen macallimiinta aanan dhalasho ahaan ka soo jeedin deegaanada gobolkani waqooyi bari tani oo sababtay in barayaal aad u tiro badan ay ka cararaan dugsiyadii ay wax ka barayeen Soomaalida ku nool gobolkani waqooyi bari oo markii hore aan muhiimadda siini jirin in ubadkooda ay bartaan koorsooyinka macallinimada ayaa haatan ay u muuqataa in ay fahmeen in koorsada macallinimada ay muhiimad weyn ku leedahay gudaha bulshada kuwa oo sanadihii la soo dhaafay la arkay ayaga oo fikradahooda boorka ka jafaayo kol aan waraysi la yeeshay maareeyaha kuliyada Wajir Teachers Training College ayuu sharaxaad ka bixiyay caqabadaha haysto kuliyada guud ahaan aniga magacaygu waxa la dhahaa Saalax Yuusuf Cabdinuur manager college-ka Wajir Teachers Training College waxaan filaynaa
inay ku guulaysan doonaan imtixaanka bari bilaabanhay ardayda u fariisanaysa bari sanadkan waxaa imtixaanka aan u diyaarinaynaa inay u fariistaan insha Allah barito 81 arday oo ka qalin jebinaysa college-ka Wajir Teachers Training College waxayna u tahay farxad dadweynaha Wajir ardayda Soomaaliyeed oo meel kasta joogan daafaha Wajir County macallin la'aanta ka haysata wadanka waxaan filaynaa inay soo afjarmi doonto ay soo dhamaani doonto midda labaad waxaan codsi ayaan u dirhaynaa dowladda county government Wajir inay maaragtay saacideysa ilmaha fiiskooda ay bixisa waayo basari fundski mar hore ilmaha loo qoray ilaa hadda wali lama bixinin macadka waxbarashada ee Wajir Teachers Training College maanta waxaa wax ka bartaan boqolaal dhalinyaro Soomaali ah oo u soo xusul duubteen in ay yareeyaan gaabiska ka jiro dhanka barayaasha gudaha county-gani Wajir ayadoo bilooyinkii ugu dambeeyay bariga Wajir oo maanta joogno laga dareemay gaabis aad u weyn xagga barayaasha wax ka baro barigani Wajir Xasan Nuur Xasan Ciyaar Jecel telefishinka Alpha gudaha ismaamulkani Wajir waxaa magaalada Wajir lagu soo gabagabeeyay tartanka u socday iskuulada sare ismaamulka Wajir warkaasi oo faahfaahsan waxa mar kale inoo eegaya wariyahena Cabdiraxmaan Geeli Xaajir Cabdiraxmaan Mucaawiye waxaa maanta soo idlaaday tartankii ciyaaraha ee u socday guud ahaanba ardayda iskuulada kala duwan ee ismaamulka Wajir oo maanta la guddoonsiiyey kooxihii kaalmaha hore ka soo galay tartankaasi waxaana kubadda cagta ku guulaysatay kooxda ka socotay iskuulka Tarbaj Boys Secondary School halka gabdhahana kubadda volleyball-ka ay ku guulaysteen ardayda ka socoto Senior Ogle Girls Secondary School ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaanka laga soo doortay Tarbaj Baashane Gacal isagoo sheegay muhiimadda ay u leedahay in dhalinyarada ciyaaraha ay ka qayb galaan soo doortay maanta waxaan ka qayb galay tartan ka dhacay dhanka ciyaarta aan ka qayb galay Catholic Primary waxa muhiim ah intii loo sheegay ciyaarta horta muhiimkeeda la fahmo muhiimka u horeeya horta caafimaad ahaan ay u fiican tahay waxay u faahfaahintay akhriska ay u faahfaahintay qofkii haddii as athlete ku taragala waxaan dareensanahay akhriskiisa iyo caafimaad ahaanba intii u fiican tahay ay muhiim ah arrinta radicalization oo youthka ay ka qayb galayeen dhanka maaragtay terrorism ay ka qayb galayeen waxaan dareensanahay haddii ay ka qayb galaan tartanka ciyaaraha ay ka qayb galaan intii muhiim u tahay ay soo yaraynaysaa afjaraysan aan dareensanahay iyadoo halkani lagu guddoonsiiyey ciyaartooydii ku guulaysatay kaalmihii ugu horeysay abaalmarin ay ugu tiragashay wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale ciyaaraha Cabdiraxmaan Geeli Xaajir Cabdiraxmaan Mucaawiye Alpha TV gudaha magaalada Wajir daawadayaal intaasi waxay nooga dhan warbixin dalka iyo deegaanka naga soo gaaro si toos ah uga dhehanayseen Alpha TV waxaana idin socodsiinay anigoo Maxamed Shaafic Anko intan warkan kiisa xukulmi doona aniyo bahdiga laqab qaato waxaan idin kaga tagayaa sidaas waliba salaam